السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواو سومالي لايف ستايل. مقعي هو عبد العزيز وحنا فيديوغراف فوتوغراف فيديو إديتين وحنا halkan kusoo gudbiya arrimaha ganacsiga waxyaabaha nolosha dhalinyarada sida u fududeey lahaayeen life style-ka. Okay, maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo video editing sidee lacag uga sameey kartaa. Waan ka cudur daarana inaan ku iraado intaasoo kunad ka sameey kartaa. Ma ahi scammer, ma ahi beenlow. lacag intaas ka sameey kartaa inaan ku iraado been ayaan ku sheegaa. Waxay ku xiran tahay qaabka u didaasho, qaabka aad dadka ula macaamisho, qaabka aad isku soo bandhigto. qofkii ku yiraahda intaas bishii ka sameey kartaa waa scammer, waa qof raba kaliya inaad daawatid. Soo marka lacag waa laga sameeyaa video editing, laakiin ma ku dhihi karo intaas ka sameey kartaa. Video editing ana lacag ka sameeyso waxa u baahan tahay 5 process inaad martid oo ka caawinaya in ay lacag ka soo gasho video editing. laga yaabaa inaan muuqaaladeyda marka aragtaa dhahayso waraamay qofkan video editing ka sheekeena asaa muuqaaladiisa isku dhex yaacsan yihiin. Waa sax muuqaalada islaamiyada oo lacagta ku helo waa qurxiyaa, laakiin keyga lacag kuma helo. Soo marka just waxaan la wadaagaa aragtideyda iyo fikirkeyga. Waana rajeynaa inaan helo qof dhalinyaro ah aan isla shaqeysano, isgarab istaagno, aan yaani wada shaqeyna dhex marto. Good. channelkan waa bilow insha Allah waa raadina, laakiin waa inaan arko qof aan la dhaco shaqadiisa firfircoon. Yes, taasaasan ugu gudbaa dhalinyaradaasna commentiga ay ugu soo weydiiyaan. shantan marka aad marto waxaan ku ballan qaadaa inaad fahmi doonto xirfadan sidii lacagta u sameeyso. Number 2 waxa u baahan tahay horta inaad leedahay social media aad wax ku soo gudbiso. Waa meesha laga arki karo, waa meesha aad xirfadaada ku soo bandhigaysid. Okay, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook page, intaas waa inaad samaysataa. Waxay ku sahlaysaa in dadku ku arkaan qofka aad tahay iyo waxa qabanaysid. Midda labaad u baahanta waxa waaye in aad yaani la xiriirtid dadka hadda bilowga ah content creator-ka ah ee u baahan in la shaqeeyo. Haysta 5,000 10,000 sida hadda TikTok YouTube-kana daawanaysid 2,000 wax ka yar ku xiran yihiin. dadkaas oo kale aad raadinaysaa, waxaad u sheegaysaa inaad video editing tahay. Soo marka dadkaas fariintaadu inay gaarto way fududahay, waayo kumantiyo badan ma helayaan, dad badanna kuma xirna. Waxa laga yaabaa inuu ku arko kula soo xiriiro. Okay, saan soo sheeganay YouTube aad lahayd farsamada meeshaas ku soo bandhigta muuqaal fayl xumaa ayaa qurxiday, marka qofku wuxuu la soo dhaca farsamadaadii wuuna ku maqlay wuuna kula soo xiriiro. Okay, soo labadaas isugu xiray. midda saddexaad oo sameynaysa waxa waaye marka video editing tahana si yaani farsamadaada loo arko waxa u baahan tahay muuqaalo ilaa adiga ma tiid video graph camera haysta. muuqaalaad qurxidana waa u baahan tahay. waxa sameynaysa anoo kale ila soo xiriiraysa hadda muuqaalkan aad daawanayso wuxuu ahaa sida log. waxaan ka dhigay sida muuqaalkan ani marka aan edit gareysto aan YouTube-kayga soo geliyo waa iska tuura. hadaa ila soo xiriirto itiraado niyahow muuqaalka marka YouTube gashatay ii soo tirha tuurin waa ku soo diray email-kaaga ii soo dirto because marba waa tuuri lahaa. adiga maxaa sameynay waa edit gareynay waa qurxinay marka waxay ku noqonaysaa in content-gaaga aad ku korsatay. midda afraad oo aad sameynayso waxa waaye weligaay allaha iska ilaali inaad qof tiraado lacag isii waa laga tagay ereygaas. inta aad dhiileed lacag isii dheh ma wada shaqeyn karnaa. soo marka qof marka aad rabto in aad la shaqeysid u tag caqabada haysato tus. waxa laga yaabaa inuu soo ogeyn markuu arko siday u dhibayda tus. marka aad tusto saa u qaba lahayd u hagaaji lahayd tus. marka aad tusto kadib markaas ka wada hadli kartiin, laakiin ka bilaabin topic marka ugu horeysa lacag ma isii ana ku qabanayo waa laga tagaa. soo jooji ma wada shaqey karnaa dheh. midda shanaad ugu dambaysa niyo ismaal geli tartiib ismaal geli. maalinkan soo gado jooji meeshaan aad rabto inaad ku shaqeystay cilada iska dhex fadhiso. ismaal geli marka ismaal geliso waxa ku fududaanaya farsamadaaduna sidaanay noqonaysaa fududayd. waxa aad qabanaysana fududayd, meesha aad fadhisana qurux. ismaal geli hadhihin hal mar marka aan lacag helo aan waxa dhan soo gadana. waxaas waxba laguma qabto. tartiib u soo gado pace tartiib. sanadkan waxa waaye isku day inaad soo gato dhowr shay.
hawshaaduna kuu socoto qurxi stuudiyahaaga meesha aad wax ku qabanaysid waa inaad muusig isticmaashaa video editor markaad tahay markaan muuqaal kuu soo diro tusaale oo kale ima weydii kartid muusig copyright-na ima saari kartid adigana haddaadan gadan oo aadan haysan free raadinaya indhaha kugu mudabaan waxa laga yaabaa in muuqaalka igala daahdo waxa laga yaabaa assetka iyo waxyaabaha mataqaanaa sawirada stock footage-ka la isticmaalayo iyo elementka waxyaabaha mataqaanaa taksiyada inaad free ku raadinaysa adiga laakiin waa inaad gadataa soo marka isku day inaad ismaalgeliso waxay kuu fududeynaysaa shaqadaada war intaas hadaa samayso waxaan ku leeyahay horaa u soconaysaa waa guuleysanaysaa waa adiga didaalkaagu marka lacag waa adiga didaalka asalaamu calaykum waraxmatullahi taala barakaatuhu intaas waa iga talo walow dhalinyarada ma u soo gudbiyey waddan dowlad lahaan joogaa dowladda intaan ka faa'iida dadkii Soomaaliya jooga ma la wadaagay dadka qurbaha jooga ma la wadaagay waa iga dhacday aniga waa iga dhacday waxa iga dhacay waajibkii isaarnaa khaasatan dhalinyarada waddankii joogta intii aan dowladnimada ku faa'iidaan jooga in la wadaagay guuleysta asalaamu calaykum waraxmatullahi taala barakaatuhu